السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ku xiran janaalka marka la soo dhawaadaha aad iyo aad u mahadsantihiin. Muuqaalkan aan idin soo gudbinayo waxa uu yahay arrintii la isku haystay ee Epstein Files, sharcigii loogu magac daray Epstein Files Transparency Act ayaa cod aqlabiyada aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka ay ku meel mariyeen. Sanadkana waxaa la filayaa inay caawa meel mariyaan. Madaxweyne Trumpna waxa uu horey u ballan qaaday inuu saxiixi doono. Trump muxuu ka yiri markii ay cod aqlabiyada aqalka wakiiladu ay ku meel mariyeen sharcigan? Halka xubin oo diidayna muxuu yahay, maadaama inta badan labada xisbi oo aan muddooyinkii ugu dambeeyay la arkin inay sharci sidan isugu raacaan oo ay u codeeyaan, muxuu yahay xildhibaanka ka soo horjeestay? Imise maalmood ayay haysataa wasaaradda cadaaladda in Epstein Files ay ku soo bandhigto? Arrimahaasi oo ayaan idinla wadaagayaa. Madaxweyne Trump oo maanta soo dhaweyn heer saraha aqalka cad ugu sameeyay dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan, wafdi uu hogaaminayo, ayaa haddana caawa aqalka cad waxa uu ugu sameeyay casho sharaf heer sare ah. Arrintaasina waan idinla wadaagayaa, balse marka hore soo dhawaada. Epstein Files muddooyinkii ugu dambeeyay ilaa iyo Trump markii uu xilka la wareegay, ninkii gabdhaha da'da yar ka iibin jiray madaxda iyo weliba dadka maalqabeennada ah iyo dadka magaca leh, ay waxyaabihii laga qoray ayaa waxaa jira in FBI-da iyo wasaaradda cadaaladdu ay hayeen oo ay diidayeen in shacabka Mareykanka ay u soo bandhigaan. Dhibanayaashii hablihii iyagoo yaryar jirkooda laga ganacsan jiray oo hadda dad waaweyn ah ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay madaxda dowladda ay ku cadaadinayeen in la soo bandhigo Epstein Files. Haddaba maanta waxa ay tageen haweenkaasi aqalka Congress-ka, xubno labada xisbi ka tirsan ayay la kulmeen shir jaraa'id ayaa waxa ay ku horqabteen aqalka Congress-ka, waxayna madaxweyne Trump ka dalbadeen in uu geesinimo muujiyo isla markaana sharcigaasi uu saxiixo. Marka aqalka wakiilada ay ka doodayeen oo ay u codeynayeen, inta badan dumarkaasi qaybta martidu ay fadhiistaan ee aqalka Congress-ka ayay ku sugnaayeen, halkaasi ayayna ka daawanayeen kana dhagaysanayeen sida ay wax u socdaan. Laakiin cod aqlabiyada oo aan loo kala harin ayaa aqalka wakiilada ee Congress Mareykanka ay ku meel mariyeen. 428 xubnood ayaa soo xaadirtay. 427 xubnood ayaa u codeysay. Hal xildhibaan oo la yiraahdo Clay Higgins oo Louisiana laga soo doortay ayaa diiday. Waliba bartiisa X ayuu qoraal ku soo qoray uu leeyahay aniga markastaba codkaygu maya ayuu ahaa, sidaasi ayaanan ku diiday inaan u codeeyo. Kulley waxaan u malaynayaa doorashooyinka xilliga dhexe ee 2026 dhamaadkeeda dhacaya inuusan doonaynin inuu dib ugu soo laabto aqalka Congress-ka, waynu arki doonaa. Marka 216 xubnood oo Republicana iyo 211 xubnood oo Dimuqraadiyiin ayaa isku raacday. Waa la filayay in sharcigan la meel marin doono, laakiin aqlabiyad intaan la eg in labada xisbi muddooyinkii ugu dambeeyay lama arkin sharci ay sidan isugu raacaan oo cod aqlabiyada lagu meel mariyo. Marka isla markiiba sanadka ayaa loo gudbiyay. Gudoomiyaha aqlabiyada aqalka sanadka John Thune waxa uu yiri waxaan filaynaaba inaguna caawa inaan ka faraxalano oo sharcigan aan meel marino. Madaxweyne Trump ayaa loo gudbin doonaa, isaguna shalay ayuuba ballan qaado, waxa uu yiri qalinka ayaan ku duugayaa haddii sharcigaasi uu soo gaaro oo labada xisbi ay meel mariyaan amaba labada aqal ay meel mariyaan. Trump markii aqalka wakiiladu sharcigan codkan aqlabiyada ay ku meel mariyeen, qoraalkan ayuu bartiisa Truth Social-ka ku soo qoray. Wuxuu yiri ma kala jecel haddii aqalka sanadku ay sharciga aqalka wakiiladu ay meel mariyaan ee caawa aqalka sanadku u codeeyaan iyo haddii waqti kale oo mustaqbalka dhow ay u codeeyaan, laakiin anigu waxaan doonayaa xubnaha Republicaanka ah in ay markastaba indhahooda aysan ka qaadin guulaha aan gaarnay. Trump markastaba waxa uu ku faanayaa ku dhawaad 11 bilood oo xilka hayay in guulo waaweyn uu wadanka u soo hooyay. Markastaba arrintaasi ayuu ku faanaa. Marka waxa uu leeyahay Republicaanku waa inaysan indhahooda ka qaadin guulaha waaweyn oo aan gaarnay, oo ay ka mid tahay meelmarinta sharciga The Big Beautiful Bill oo bishii July 4 uu saxiixay, inaan xuduudii xirnay, inaan raggii ka saarnay ciyaaraha isboortiga, transgenderkii dadkii isbedelayay ama dumar amaba rag ha ahaadaan isbedelayay inaan iyagana sidoo kale joojinay. Waxaan gabagabaynay DAI-dii, waxyaabihii kambaniyada qasab uga dhigayay dad jinsiyad kala duwan in ay shaqaalaysiiyaan. Waxaan sidoo kale joojinay ayuu leeyahay sicir bararkii cirkaas isku sii shareerayay oo Biden uu sameeyay. Canshuur dhaafkii ugu ballaarnaa taariikhda ayaan sameynay. 8 dagaal ayaan joojiyay. militariga ayaan dib u dhisay. Haddana waxaan nahay wadanka loogu xushmeynta badan yahay guud ahaan caalamka.
trillions of dollars ayaa wadankeena lagu maalgashtay waxaana hadda wadankeena uu yahay wadanka ugu cadcad ayuu leeyahay guud ahaanba caalamka marka meel kasta oo caalamka waxa uu leeyahay marka annagoo guulahaasi waaweyn gaarnay isla markaana xitaa xisbiga dimuqraadiga uga adkaanay shutdownkii 43 maalmood oo dowladda xirnayd waxa uu leeyahay ma doonaya Republicaanku marka arrintan inay ku mashquulaan oo waa inay diiradda saaraan guulahaasi aan gaarnay oo isha aysan ka qaadin Make America Great Again waa uu ku soo gabagabay marka Trump maalmahan bahiidka ayaa gaaraya arrintan Epstein file-ka markasta oo su'aal laga weydiiyaba waa uu xanaaqay maanta diyaaradda madaxweynaha wariyaal ayaa la raacay inta badan meel kasta uu tagayo idaacadaha laga soo kala xulay marka diyaaradda gudihiisa isagoo saaran ayaa gabar Bloomberg News ka tirsan ay madaxweynaha su'aal weydiisay maalin dhawaato waa tii email la soo bandhigay Trump magaciisa dhowr jeer oo ka muuqanayay marka gabadhan waxa ay weydiisay Jeffrey Epstein muxuu ka waday emailada marka uu ku dhahayay Trump waa uu ogaa gabdhaha waxbuu ka ogaa marka uu dhahayay muxuu ka waday ayay weydiisay su'aashaasi uu uga jawaabo wuxuu yiri Jeffrey Epstein aniga markastaba xiriir aad u xun ayaan sanado badan lahayd su'aal kale marka ay ku celisay oo waxa ay tiri faylalkan hadda laga yaabo in la soo bandhigo wax adiga dambi kugu cadeynaya miya ku jira Trump markaasi boqolkay ka gaartay waa uu xanaaqay markaasuu wuxuu yiri aamus doofaar yahay waliba isagoo farta ku fiiqaya sawirkan sida muuqatana wajigiisa caro weyn ayaa ka muuqata marka Trump aad ayuu uga carooday su'aashaasi gabadhu weydiisay aqalka cad sidoo kale maanta markii uu kula kulmayay dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya gabar iyaduna ABC ka tirsan ayaa waxa ay weydiisay madaxweyne adigu maad amartid wasaaradda cadaaladda oo dhahdid faylalkan la soo bandhigay Epstein files maxaad uga baahan tahay in Congressku ay sharci meel mariyaan markaas kadib ayuu wuxuu weydiiyay adigu horta halkeed ka socotaa ABC fake news ayaa tiin uu yiri xitaa lesson-ka in la idin kala laabto ayaad astaahishaan marka ninkii Trump ah markasta oo su'aal la xiriirta Epstein file la weydiiyo waaba xanaaqayaaba marka waxa uu leeyahay bal arrintan dhinaca ay dhaaftee sharciga Congress-ka Republicaanku ha u codeeyaan isaguna waxa uu yiri sanadka waxa la filayaa isla caawa inay meel mariyaan madaxweynaha markaas isaga ayay ku xiran tahay waqtiga uu saxiixayo kadib wasaaradda cadaaladdu waxa ay haysataa muddo 30 maalmood ah in faylalkaasi kuwa classified-ka ah kuwa unclassified-ka ah lama soo bandhigi karo laakiin kuwa classified-ka inay soo bandhigaan ilaa ay hadda waxa la leeyahay ku dhawaada 60,000 oo kamid ah Epstein files ayaa la soo bandhigay Trump magaciisa waxa uu ka muuqanayay 60kaasi kun ee la soo bandhigay 2020 jeer ayaa magaca Trump lagu arkayay marka waxa la leeyahay 100,000 ayay ku dhow yihiin dokumentiyadan marka imise jeer oo kale ayuu magaciisu ka muuqan doonaa Trump dokumentiyadan haddii la soo bandhigo arrintaasina waynu sugi doonaa hadda maadaama cod aqlabiyada aqalka wakiiladu ay ku meel mariyeen waxa la sugaya waxa ay tahay in aqalka sanadku ay caawo sidoo kale iyaguna ay meel mariyaan madaxweynaha markaas isaga ayaa la sugayaa xilliga uu saxiixi doono haddaba waatan maanta markii aqalka wakiiladu ay sharciga u codeeyeen oo markii lagu dhawaaqay natiijada ay sacab iyo sawaxan iyo waliba qaylo gudaha aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka laga maqlay On this vote the yeas are 427 the nays are 1 2/3 being in the affirmative. The rules are suspended. The bill is passed, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table. madaxweyne Trump waa kii maanta soo dhaweyn heer saraha aqalka cad ugu sameeyay dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman iyo wafdi hogaaminayay Trump waxa la arkayay markii gaariga uu ka soo tagay roog cas in loo fidiyay Mohammed bin Salman gacmahana uu intuu kala fidiyay uu soo dhaweeyay kadibna uu gacan qaaday waliba aqalka cadna meelo kamid ah uu tusinayay markaas kadib kulan ay wada yeesheen su'aalo ayaa marka wariyaashu ay weydiiyeen kulanka markii Oval Office-ka ay ku yeesheen kadib Mohammed bin Salman ayaa waxa la weydiiyay Abraham Accord oo Trump 4 sano oo hore madaxweynaha qaar kamid ah wadamada ku yaala khaliijka Israa'iil lagu heshiisiinayay ma ku soo beeraysa marka Mohammed bin Salman waxa uu yiri waxaan doonaynaa Israa'iil nabada iyo Falastiin nabada marka waxa uu ku xirayaa in heshiiska ama xiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga si loo soo celiyo in ay dhacdo horta dhisitaanka dawlad Falastiin ay leedahay wadadii lagu dhisi lahaa in cagta la saaro marka arrintaasi ayuu sheegay marka caawana casho sharaf ayuu madaxweyne Trump aqalka cad ugu sameeyay Mohammed bin Salman iyo waftigiisa laakiin waxa laga soo calaameeyay xaaska madaxweyne Trump Melania Trump inay soo qaadatay dress cagaar ah oo qaybta sarana ay ka qaawantahay waxaya aysan jirin xilli waliba wafdi muslimiina ay la kulmayso cashadaasina waxa ay ahayd casho sidoo kale heer sare ah oo madaxweyne Trump uu ku soo dhaweynayay wafdigan uu hogaaminayo
dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan maantana diyaaradaha F-15 ayaa aqalka cad dul maray markii la soo dhaweynayay fardo oo dhaqanka Sacuudiga ay aad u jecel yihiin isla markaana Sacuudiga aad looga jecel yahay ayaa lagu soo dhaweeyay marka waxa ahayd mid kamid ah soo dhaweynadii ugu heerka sareeyay oo Trump markii uu xilka la wareegay bishii January dhammaanba aan loo samaynin madaxweynayaashii iyo mas'uuliyiintii kale ee aqalka cad soo booqanaya marka heshiisyo dhowr ah ay kala saxiixan doonaan wafdi heer sare ah oo ganacsato iyo wasiirada ayaa la socda dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya sidoo kalena diyaaradaha F-35 ayaa la filayaa in laga iibin doono dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya laakiin arrintaasi waxay u baahan tahay Congressku inuu meel mariyo waan arki doonaa sidoo kale waxyaabaha arrimahaasi ka soo kordha aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo